بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر دوادا برنامج كيني دبك هذا وبرنامج كيني توسكا هاي عن كور رمي جري حالذي وجودن بيجي ودن كصوماليا جارهنا حصتك على وصل مجال المقدسية عاصمة الصومالية سلا الله سعتان با تانية أنتي مدكردين أي سمايين برلمان كصوماليا وحد جرتي حصة إسلام مركز كدلتي تريه بوليس كجبل كبنادر صادق عمر ama Saadiq John loo garan og yahay waxa uu haystaa ciidamo kala duwan waxa uu degay habeen dhaxdaaris ahayd meesha lagu magacaabo shirka ofishiyaal ee degmada Hodan kadibna waan iyo wada hadal dheer oo ay galeen madaxweynaha Galmudug iyo dabcan Saadiq John iyo xubno kale waxa lagu guuleystay in Saadiq lagu qanciyo inuu dib ugu laabto goobtii hore u deganaa ee garoonka aadan cadde aan sidaas uga fogeyn isla markaasina gurigiisa rasmiga ah oo ka degan yahay magaalada Muqdisho muddo halkii sii deganaa kadib waxa la sheegay inuu dib ugu laabtay halkii uu ka soo guuray ama gurigiisii saxda ahaa ee garoonka aadan cadde hayeeshee caawa ayuu mar kale soo ruqaansaday waxaana lagu soo warramayaa inuu xoog ku maray bara kontarool oo dabcan ka sokeeya meesha uu mar kale ku noqday shir kale dawladuna waxa dhankeeda lagu soo warramayaa inay diyaarisay ciidamo xoogan kuwaasi oo lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa iyaguna gaadhay deegaanka shir kale arrimahaasi oo dhan ayaan ka warrami doonaa waxa ila jooga saaxiibkay Jaamac Galad Jaamac waa ku soo dhaweynayaa Ramadaan Kariim bal hadda ka warran Muqdisho say wax uga socdaa waan ku salaamayaa saaxiibkay Nuur Maxamed adiga iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba Ramadaan Kariim ayaan leeyahay Nuurow sida aad sheegtayba waxa baaragtay to fiidnimadii caawa bilowday dhaqdhaqaaq ciidan iyo dhiilo colaadeed oo runtii maxaan ku idhaahdaa magaaladu ay ka soo kabanaysay maanta iyo shalay sidaynu ogsoonahay habeen hore ayay ahayd markii xasarada colaadeed ay ka jirtay deegaanka shirka ofishaale taasi oo ka dhalatay dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ciidanka dawladdu ku doonayeen in ay ku soo qabtaan taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir General Saadiq John ama Saadiq Umar Hassan John arrintaasi waxa ka odayeeyay sida maaragtay warbaahintuba ay sheegtay ama dawladda naftirkeedu ay sheegtay madaxweynaha dawladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaasi oo isaga oo maaragtay codkii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ku hadlaya u ballan qaaday Saadiq John in aan maaragtay wax weerar aan lagu soo qaadaynin dawladdana uusan uga imaanaynin sidaa daraadeedna ay tahay isagu dhinaciisa in uu joojiyo dhaqdhaqaaqa ciidan ee uu wado dibna uu ugu noqdo maxaan ku idhaahdaayo hoygii uu ka deganaa magaalada Muqdisho amaba oo maaragtay gurigiisa oo ku yaala aeroboortka magaalada Muqdisho meelan ka fogeyn marka Saadiq John shalay gelinkii dhexe ayaa uu halkaasi u dhaqaaqay ama shir kale uu ka ambabaxay waxaana uu dib ugu laabtay hoygii uu ka deganaa magaalada Muqdisho xalay iyo shalay gelinkii dambe iyo maanta gelinkii hore waxa lagu joogay maaragtay si deganaan ah wax dhibana ma jirin duhurnimadii maanta wixii ka dambeeyay ayaa hal mara waxa bilowday dhaqdhaqaaq ciidan oo maaragtay waxa la xiray dhamaanba jidadkii soo galay guriga Saadiq John ayaa ciidamada maaragtay ka amar qaata Villa Soomaaliya ay isku gooyeen ciidamo badan oo kumanaan ah oo gaadiidka gaashaaman ku jooga oo kuwan magacyada maaragtay kala duwan leh ay ka mid yihiin ayaa halkaasi isku gooyay Saadiq John waxa u soo baxday marka xaqiiqda iyo waaqica dhabta ah iyo in ay maaragtay lama huraan tahay in uu maaragtay halka uu ku badbaadi karo uu dabada la galo taasa marka waxay horseeday afurkii ka dambe fiidnimadii caawa in ciidankiisii uu kolonyeysto 3 bar control oo ciidanka u yaalay in uu xoog ku jiro ugu yaraan 40 gaadiid ah oo kala duwan ayaa uu watay oo gaadiidka dagaalka ah u badan oo waxaan uu nabad ku gaaray oo ugu dambeyntii maxaan ku idhaahdaa shir kale ofishaale oo halkii xaafadu ay deganay waa mahadsantahay
aad baad u mahadsan tahay jaamac gallad waa yahay bal hadda markaan ka nimaadno saadaq maxaa keenay in saadaq oo maaragtay waan hore kaga laabtay shirka ofishiyaal uu mar kale dib u soo beegsado nuurow xaqiiqdu waxa ay tahay meeshan waxa weeye nin qab weyn iyo nimaan u qabin isqardoofe wey farmaajo waxaa u soo baxday in maaragtayto uu yahay madaxweyne ciidanna uu haysto amisomna ay ilaalinayso sidaa daraaddeed madaxtinimadiisu in ay ku xidhan tahay in wax kaste oo ka hor yimaada xoog lagu muquuniyo oo ciidamada saadaq john uu wato haddii aan hadda gacan bira lagu qabanin oo aan maaragtayto cashar taariikhiya loo dhigin in ay soo bixi doonaan kumanaan ciidan oo kale iyo kumanaan hogaamiye oo kale kuwaasi oo dhammaantoodba mari doona dariiqa uu maray saadaq john si marka taa looga hortago ayaa saraakiisha ciidanka maamulka farmaajo shir ay yeesheen oo tan iyo xalay ilaa iyo maxaanku idhahdaa shalayba socday waxaa lagu go'aamiyey oo laysku maaragtayto waafaqay inaan wax wada hadal laga gelin gacan ku haynta magaalada muqdisho sideedaba in gacan ku haynta magaalada muqdisho aan qabiilna lagula gorgortamin maxaanku idhahdaa kooxna lagula gorgortamin ee ay dowladdu horta muqdisho meel saarto marka waa go'aankaasi ayaa maaragtayto keenay dhaqdhaqaaqa maanta iyo duulaanka maaragta lagu qaaday guriga saadaq john uu ka deganaa magaalada muqdisho waaya saadaq mar kale ayuu dib u soo beegsaday meesha lagu magacaabo shirka ofishiyaale dhinaca dowladda haddiiba kontarooladii uu maaragtay xoog ku maray sida la sheegayo maxay qorshaynaysaa iyadu caawa ma dib bay isaga laabatay mise waxaa jira weerar laga cabsi qaba inay mar kale la beegsato nuurow sida hadda xogihii ugu dambeeyey hadda aan helayo weliba intii hadda maaragtay barnaamijka aan ku jirnay xogta aan helayno na soo gaaraysa ayaa waxa ay sheegaysaa in xataa ciidankii ilaalada villa maaragtayto soomaaliya qayb ka mida iyo gaadiidkii dagaalka ciidankii ilaalada baarlamaanka wixii ciidan carrada joogayba in loo dhaqaajiyey xagga iyo maxaanku idhahdaa xaafadda shiirkole oo ay hadda ku sii socdaan yacni waa daqiiqadahan hadda qaar ka mida gaadiidkii dagaalka ciidanka ilaalada xarunta madaxtooyada iyo xarunta villa hargeysa ayaa hadda loo dhaqaajiyey dhinaca shiirkole ofishaale oo waxay ku biirayaan ama ay qayb ka noqonayaan ciidamada dowladdu ay u dirtay ee ku sii wajahan ama ku sugan aagga shiirkole marka waa xogaha ugu dambeeyey ee haddana soo gaarayo weeyaan markaan ka maaragtay ka tixqaadanno amaba aan soo qaadanno hadda qodobkan ugu dambeeya oo kale dowladdu waxay muujinaysaa in aanay waxba la hadhaynin oo wixii xoog iyo xeelad ay haysay ay geynayso wayna ka go'an tahay arrintaasi meelay la gaadhaba waayahay bal hadda markaan fiirino waxaa kaloo laleeyahay gaadiid kale oo ilaa 32 gawaari adag maaragtay dagaalka ayaa u tagay saadaq john maxay ahaydeen gawaaridaas xageys ka yimid waa maaragtayto tirada anigu kolleyde ma hubo laakiin sida xogta aan ku helayno gaadiid kala duwan ayaa maaragtayto gaadhay magaalada muqdisho xildhibaanada ku sugan ganacsatada magaaladu way hubaysan tahay qoryaha waaweyn guryaha yaalaan maxaanku idhahdaa isla daqiiqadii loo baahdo ayaana gaariga la saari karaa marka wax sii buuran ma aha in maaragtay boqolaal tiknika ah oo meelay ka yimaadeen aan la aqoonin in la arko marka gaadiidkaasi waxa uu ka mid yahay gaadiidka dagaal ee beesha maaragtay uu ka soo jeedo saadaq john ay saacadihii la soo dhaafay ay maaragtay rakibayeen amaba ay ugu diyaar garoobayeen dagaal ay u muuqato inuu lama huraan yahay wax walba waxaad moodaa inay soo dhammaadeen waan dambe inaanay jirin tii qoorqoor iyo ninka la yidhaahdo rooble waa fashilantay waxa keliya maanta harsan sida muuqata saadaq joonna ka soo raray mar labaad maxaanku idhaahdaayeto xaafadiisii ku soo celiya shiirkole waa xaqiiqda iyo waaqica hor yaalla oo ah in dagaal lama huraan yahay cid ku macaashtaba
waayahay bal hadda markaan fiirino jaamacow waxaad moodaa sidoo kale waxaa tegay siyaasiyiin maaragtay ka soo jeeda galmudug ama ay saadiq isku hayb yihiin haddaan si toosa u sheego waxaa ka mid a xildhibaan cabdiraxmaan odanwaa waxaa ka mid a mahad salaad waxaa ka mid a saabir nuur shooriye xildhibaanadaasi iyaga ujeedka ay halkaas u tageen maxay tahay nurow way iska caddahay ma aha hebel iyo hebel ma aha beesha uu ka soo jeedo saadiq john si cad haddii aanu sheego aan ka cudur daaranayo beelweynta habar gidir waxaa weeye waxay isugu tagtay degmada hodan aagga shiir kale ofishaale halkaasay joogaan waxayna maaragtay to muujinayaan inay diyaar u yihiin inay dagaalamaan dee shiir kalena waa taqaanaa baan filaya ama aaggaasi ciddii garanaysa unbaa garanaysa waa meeshii maxaan ku idhaahdaa to wacdaruhu uu ka dhici jiray waa meeshii maaragtay to mbc ilaa iyo black sea ama baar ubax shiir kale ofishaale cirtoogta wixii ka soo rogan حقنا أدو فوجان ماركتايتو شركتها وحي كسر رجن إلى ورشة عانها إلى شير كله هوجل كاس إلى ورشة باستة إيرياس وماله وحوي تاريخها وين إن ماركتايتو إن لا أكد عوي وماشي إن محنكو إلى هذايتو إذا ماضي مريكن كله جوتش بيجي سراكيشي إن إذا ماضي مريكن كله جوتش شيء الديار هذا محنكو إلى هذايتو لجوس الدادي وماشي لجوتش بيجي إن ciidamadii Ethiopia 70,000 ee askari madaxa kala baxayay waa maaragtayto waa dhulkii taariikhda Soomaalida sanadihii 30 sano oo ugu dambeysay taariikhda kaliya ee Soomaali ay leedahay meeshii ay ka dhici jireen weeyaan aagaas ay marka dabada la galeen ciddu marka waa isdiyaarisay sida muuqata xildhibaanadu ma dagaalamayaan ma qoryo qaadanayaan xildhibaanadu de xildhibaanada dagaalka waa lagu soo qaadayaa nin hadda maaragtay to ana dagaal sameynaya kulli deeyma muuqato laakiin sida cad difaac horeyna way u sheegeen haddana way sheegayeen inay isdifaacaan oo difaacdaan maxaan ku idhaahdaa to deegaankooda iyo aagooda intaasay sheegayaan marka waynu dhowraynaa hadda iyo wax weerarana waa arkaynaa haddase sida muuqata iyaga weerar lagu yahay oo ciidankii dowladda oo dhan ayaa caawa u ruqaansaday shiir kale waa maasan tahay waa rajaynaynaa inuuna dagaal dhicin la qaboojiyo xiisadaasi waaya jaamacow markaan fiirino sida wax u socdo waxaa jirtay ilaa inta mudarshashadu ay maaragtay timid madaxweyne farmaajo iyo baarlamaanku ama gudoomiye mursal warkooda cadaysteen waxaa jirtay caryaa ku dhaca kelmad la yidhaahdo oo maaragtay aad dadku ay dhagaha ugu hayeen bal cidda ku dhici doonta inay maaragtay farmaajo dagaal la gasho waxaa aad loo maaragtay isha loogu hayay madaxweynayaashii hore in ay maaragtay dagaal hogaamiyaan waxaa la sheegaya inaysan macquul u ahayn ama aysan suuragal u ahayn inay maaragtay iyagoo madax waddanka ka soo noqday ay dagaal maaragtay galaan inkastoo aag bedelasho ay sameeyeen oo meelo kala duwan ay degeen su-aasha inaan ku weydiiyo rabeen u gollahay waxaa weeye saadiq john ma laga yaabaa inuu noqdo qofkii bilaabi lahaa dagaalka farmaajo lala galo nurow kolley sidaa ii muuqata anigu ma arko dagaal hadda saadiq john uu bilaabayo laakiin dowladda go'aankeeda ama villa Soomaaliya go'aankeedu waxa yahay cid kasta oo ka hor imaata in awood macnaha ama ha bilaabo ama ha lagu bilaabay qofku dagaal ka bilaaban lahaa baan ka waa khasab markii la weeraro khasab weeyaan qoladii kaleba markii hotel maayida lagu weeraray way isdifaaceen oo maaragtay to inta la yimid oo la xabadeeyay la iskama noqonin وحسن شيخ iyo sheekh shariif ba iyo ciidankoodu way dagaalameen taa xaqiiq weeye marka kuwana hadda waa la weeraraya sidii kuwa loo weeraray ba maartay to loo weeraraya hadii laga guuleysto oo de la soo qabtana waynu u joognaa haday wax iska dhacshaana waynu u joognaa laakiin dagaalku ma aha mid hadda bilowday waa mid bilihii la soo dhaafay oo dhanba socday oo maartay to muquunis wax la yiraahdo inaan wax gorgortana laga gelin rabitaanka maxamed cabdullaahi farmaajo inaan gorgortan laga gelin waa muhiimadda ama go'aanka yani villa Soomaaliya saraakiisha ciidanka ee halkaasi ku shirtay ay qaateen wax kaste maxaan ku idhaahdaa awood baa lagu muquulinaya waa go'aan cad weeye
kuwanina way ka hortageen oo waxay yidhaahdeen wax kasta annaguna waa ka hortegaynaa waa iska difaacaynaa marka de nin qab weyn iyo ninaan u qabin ayaa hadda qoorta iskula jira meeshay iskala soo dhacaan ayaan fiirinaynaa dad badan baa waxay maaragtay leeyihiin dagaal baad hurinaysaan ama colaad baad maaragtay xamar in dagaal ka dhacaad jeceshihiin ama wax noocaas ay soo qorqorayaan maya annaga xamar nabad baan u rabnaa waxaan u rabnaa barwaaqo waxaan u rabnaa bashbash waxa jira laakiin marka la sheegayo ee xaqiiqda iyo waaqaca dhabta ah ee yaala marka laga hadlayo ma aha in aan raadinayno in dhibaato dhacdo waan aqaanaa anigu dhibaato waxay tahay xamar xabaddu maalinkay ka bilaabanaysay waan dhex taagnaa oo maxaan ku idhaahdaa la igama sheekaynayo maxaan 12 bishii December maalin axada inay ahayd baan filayaa markii 5 bishii June ama 6 bishii 5 bishii June bisha 6 maalinkii la weerarayay ciidankii Bakistaanida ahaa ay weerareen radio Muqdisho ayadana xaadir baan u ahaa oo waan taagnaa maalinkii la weerarayay maxaan ku idhaahdaa gurigii ku yaalay Shaneema Nasr duleedkeeda qofkii ugu horeeyay ee galay baan ahaa hal qof oo bini aadan igama horeeyay meydka waxa hor yaalay gabadh madow ah iyo nin cadaan ah oo wakaaladda wararka ee Reuters u shaqeynayay waa meeshii 72 qof ee habar gidirta lagu dilay ee Cabdi Qaybdiid iyo Professor Ciise Maxamed Siyaad ayaan jeclahay dadkii ka badbaaday inay kamid ahaayeen Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid gadaal buu ka dhacay ninka la yiraahdo Professor Ciise Maxamed Siyaad ee maxaan ku idhaahdaa isaga oo gurguranayo wada boora ayuu ka soo baxay oo maxaan ku idhaahdaa qof iiga horeeyay ma jirin anigu marka waxaan waan garanayaa 3 October maalinkay dhacaysay habeen iyo maalin baan ku dhex go'doonsanaa guri aan ka fogeyn Hotel Olympic waxa weeyaan marka balaayo waxay tahay waa la yaqaanaa uma doonayno balaayo iyo baas waxaan rabnaa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo miiska inuu inta soo fadhiisto isaga maanta taladii dalka xoog iyo xeelad wuxuu dooniba ha ku haystay isaga haye in uusan sabab u noqonin dagaal dhiig ku daato oo uusan qofna ku macaashaynin maanta waxa uu diidan yahay berri iyada oo ka xun ayuu ogolaan doonaa berri buu wuxuu ogolaan doonaa marka boqolaal wiil ay dhimato guryo badan ay dumaan gawaari badan ay gubato hanti badan ay burburto markaasi ayuuba haddii waqtigu ku simo wuxuu ogolaan doonaa wax walba laakiin Soomaalidu inta ay caafimaad ka qabto inta aysan balaaya dhicin maxaan ku idhaahdaa wax ma fahmaan waxay wax ku fahmaan waxa weeye waa dhiigga iyo balaayada marka de balaayana waxa la yiri af la qabtay leedahay ama hor la qabtay leedahay daba la qabta male marka waxaan leeyahay anigu xamar nabad ha loo daayo waxa xoog lagu raadinayo xaaja lagu heli karaa haddii se aan la yeelaynin de maba socoto oo dariiqeedii ma muuqdee waynu arkaynaa bal macaashka iyo guusha laga gaaro aad iyo aad ayaan u jeclahay inay xamar nabad noqoto anaa xamar ku dhashay oo barbaaray dadkeedii oo leh oo aan cidna maaragtay dib aan la doonaynin sidaa daraadeed waa in wax walba wanaag lagu raadiyo haddii wanaagga la waayde waxa weeye waxaan ku huraynin waa qasab weeye waa imaanaya waxa leeyahay waxaad rabtay haddaad weydo oo aad maaragtay heli weydo dee waxaan ku huraynin ayaa lama huraana oo aad yeelaysaa aad baa umahadsan tahay jaamac waaye gabagaba ayaynu ku dhownahay wararka hadda naga ka helayno maaragtay magaalada Muqdisho waxay sheegayaan dad banaan baxayaala inay iskood isu soo abaabuleen kuna hor banaan baxayaan ama ka dhex banaan baxayaan xaafadaas shir kale dadkan banaan baxayaasha waxa la sheegayaa inay ku qaylinayaan farmaajo dooni mayno maaragtay erayo madaxweynaha ka dhananaya halkaasi kaga dhawaaqayaan bal hadda ka waran Saadiq John iyo xildhibaanada la socda iyo guud ahaanba dadkan isku haybtay dhinaca isu urursaday banaan baxaasi caawin doonaa baad is leedahay ama ma dhiiri gelin doonaa de kolley waa maaragtay anu hadda banaanbax meel xabad taalo banaanbax anu ma arko laakiin de dadku markay ka war heleen waxa socda meesha way imaanayaan de mudaharaadkuna saasuu ku imaanaya ee mudaharaad la soo abaabulay ma aha ee waa dadkii maaragtay meesha markay xogta heleen iyo in xiisadu taagan tahay dadkii meesha yimid baa de kolley mudaharaadaya ma aha mudaharaad laga soo shaqeeyay ama wax la soo abaabulay laakiin waxaan
u arkayaa qayb ka mid ah shucuurta iyo xiisadda taagan weeyaan marka muhiimadda waxay tahay muqdisho mar haddii xaajadu sidan ay noqoto laguma kala adkaanayo lagama yaabana farmaajo inta guul ka soo dheelmo inuu guul ku mashxarado waa calaacasha oo tima ka soo baxeen wuxuu nabad ku waayeyna lagama yaabana inuu xoog ku helo wuxuu iska ciideynayaa labada bilood ee muranka uu ku sii joogi lahaa yuu iska ciideynayaa oo hadda labadii bilood aw isagu laba sano ku darsaday ee labadii bilood ee muran iyo isdaba wareeg iyo waxaa noqon lahayd ayuu iska ciideynayaa waxaan ka yaabi inay la dhaafi weyda 2 toddobaad waa maasan tahay madaxweynuhu waraysiga caawa la sii daayay laga qaaday oo dabcan noqonaya waraysigiisii afraad intii xukunka hayay waxa uu mar la weydiiyey in go'aanka laga noqon karo in kale wuxuu yiri inaan laga noqon karin buu sheegay go'aanka baarlamaanku uu gaadhay isla markaasina wada hadal dambe waa la wada hadli karaa buu laakiin de wada hadal maaragtay dambe oo ka furan arrinta doorashada ma jiro marka ay sidaa tahay miyaysan intuu dhiig daadan lahaa walaalo Soomaaliyeed isku baabi'i lahaayeen magaaladu dundumi lahayd mar kale dad qixi lahaayeen dhibaato iyo balaayo dhici lahayd miyaysan wanaagsanayn oo ka wanaagsanayn in ninkan la iska daayo labadaasna madaxweynuhu ha iska dhamaysto kadibna doorashada qofkii iyo codkii uu sheegay ha qabto intaasna siyaasiyiintan iyo ragga maaragtay damacu ku jiro iyagu dhinac kale ay u xusul duubaan oo sida ay xisbiye u dhisan lahaayeen doorashada qofkii iyo codka ay shacabku u kasban lahaayeen ugana qayb gali lahaayeen ay isu diyaariyaan labadaasna iyaga laftooda ileen chance ay isku diyaariyaan waa u baahan yihiin nuurow hadda ka hor baa waxaa la yidhi nin waalan baa riti la saaray moogta ninkii waa la markii ritigii la saaray showrtiguna riti wuxuu ahaa maaragtay aan aad rarka u aqoonin ritigii marka ninkii la saaray wuu la buubay waa sidaan rabay buu meeshii uu maaragtay qabsan lahaa maxaan ku idhaahdaa ritigii oo bal uusa dhicitaanka isaga ilaalin lahaa wuxuu bilaabay sacab iyo qosol iyo maxaan ku idhaahdaa farxad iyo waa sidaan rabay ritigii marka dee waa uu haraatay haddii marka la yidhaahdo 2 sano ha loo daayo ee xaaraanta ah dee waa siduu rabayba inta uu nool yahay ayuu ku xisaabtamayaa inuu joogo waanu xididaysanayaa ciidamana wuu samaysanayaa dad u shaqeeya oo maxaan ku idhaahdaa uu isticmaalana ma waayayo marka meesha hadda uu taagan yahay in lagu joojiyo waxay ku dhaanta male farmaajo habeenkuma riyoonin wanaag iyo shacabka Soomaaliyeed dawladnimadooda iyo in Soomaaliya nidaam dimuqraadiya uu ka hana qaado saacad ama habeen qalbigiisa ma gelin saacadba wixii uu samayn karo ayuu sameynayay talana ma aysan dhaafin ciidan buu samaystay magacyo kala duwan leh maleeshiyaad buu samaystay waliga miyaad maqashay ciidanka ilaalada shacabka oo ciidan ah maxaan ku idhaahdaa 400 oo ciidana oo kuma dharcada oo la yiraahdo ciidanka ilaalada shacabka waliga miyaad maqashay ciidanka يعني وعيدمada loogu talagalay inay sida gaarka u hawlgalaan siyaasiyiinta iyo dadka mudaharaadaya iyo waxa inay galaan ma garanayo laakiin ciidankan waxa la yiraahdaa ciidanka ilaalada shacabka waa ciidan si gaar ah u tababaran oo dharcada oo dadku hadday isku dayaan inay mudaharaadaan inta soo dhex galaan bay laba madaxa kaga dhufanayaan mudaharaadkiisaas ku fashilmaya maalinkii dhaweyto kuwii maxaan ku xarada garoonka meeshii maxay ahaydayto baarlamaanka joogay bay ahaayeen ciidamada waxaa jira kuwa ruuxaanta la yiraahdo oo iyaguna noocaas oo kale oo dharcada oo kuwa maaragtay baabuurta ku dhajiya bambooyinka ama miinooyinka qarxiya ama maaragtay waa waxyaalo noocaasa waad aragtay waxan kale ee tirada badan maleeshiyaadkan faraha badan ee magacyada loo bixiyay waran iyo gorgor iyo haramacad iyo waxaas oo dhan ma aha ciidan Soomaaliyeed ma aha ciidan ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waa 4 qaybood weeyaan magacyada ay leeyihiin waa la yaqaan waa ciidanka bilayska Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxa soo raaca guutada la yiraahdo danab oo iyaduna soo jireen ah marka farmaajo tala ma dhaafin wixii uu qabsan karay wuu qabsaday wuxuu samaysan karay wuu samaystay wuxuuna ku talagalayaa dariiq kaste oo uu mari karo in uu maro cid uu maaragtay baryahayo iyo cid uu wax ka doonayana ma ay jiraan cidii marka been dhihi lahayd waxa sheegayso waxba kama jiraan caawa ay tahay in ay hadasho laakiin wax kale oo meesha yaalla ma jiraan
intuu diyaar garoobi karay wuu diyaar garoobay haddii maanta laga adkaadana tala mayna dhaafin oo maxaad saa u yeeli weyday isdhihi umahayo oo haddii uu guulaystana dee waaba ku talagalay haddii laga guulaystana dee ma jirto shalay uu shalaayayo laakiin habeen kuma seexanin dowlad Soomaaliyeed oo dimuqraadiya inay ka dambaysa isaga oo gadaashin la yiraahdo dal Soomaaliya la yiraahdo oo jamhuuriyadda federaalka ah ayaa dowladdiisu shaqaynaysaa farmaajo habeenna kuma seexan kuma soo toosin waa mahadsantahay aad iyo aad u mahadsan tahay jaamac xasan cabdulle jaamac galad ayuu kaasi hada wadayaal wixii waray ka soo kordhay dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa wararka magaalada muqdisho iyo xiisadaas ka aloosan intaan mar kale kulmi doono waa nuur iyo jaamac iyo barnaamijka dhabka hadal oo idin la sidaas iyo guuriyo gobonimo